السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال waa barnaamijka ciyaaraha gacantooyo show aan idinka soo gudbin jirnay hadahan oo kale. Qodobada aan ku soo qaadan doonana waxaa ka mid ah laacibka Fred oo markaasi la sheegayo inuu u sii socdo koox Sacuudiga ka tirsan. Waxaa kaloo ku eegi doonaa Bayern Munich oo iyaduna markaasi doonaysa weeraryahanno. Qodobadaas iyo kuwa kale ayaan idin soo gudbin doonaa. Ku soo dhawaada janalka gacantooyo show. Because City are on a different plane. De Bruyne, carried back by McTominay! Red letter day! He'll get another go, and he'll twist away from Ake, and Rashford scores! De Bruyne! Benny hit by Saka. What a wonderful, wonderful goal! Bruno Fernandes, beautiful! Bukayo Saka, Arsenal ahead! Rashford has rifled it in! Watahay ugu horreyn baynu ku bilownay ciyaaryahan Fred ayaa la fasaxay kadib markii Manchester United ay la wareegtay ninkii booskiisa ka ciyaari lahaa oo ah isagoo Joseph Mount. Fred ayaa la sheegayaa in dalab uga yimid Galatasaray lacag gaaraysa 20 milyan oo pound Ingiriiska ah, balse Man U ayaa ku doonaysa Fred oo dhalashadiisu tahay Brazil 25 milyan. Ciyaaryahan Fred ayaa lagu soo waramayaa in Sacuudigu xitaa dalab uga yimid, balse warkaas xaqiiqa naadiga Tottenham ayaa la gelisay heshiis qandaraas kordhin ah laacibka Harry Kane kaasi oo ah ballanqaad in toddobaadkiiba uu qaadan doono ilaa 400,000 oo geli toddobaadkiiba, balse heshiiska ayaa u eg mid wax kama jiraan ah. Waayaba la leeyahay Bayern Munich ayaa si waali ah u doonaysa weeraryahankan. Kooxda Bayern Munich ayaa wararku sheegeen in khilaaf uu soo kala dhaxgalay ciyaaryahankii hore ee Liverpool magaciisa la yiraahdo Sadio Mane, lagana yaabo in uu ka soo tago Bayern Munich. Sidaas ayaa keenaysa baa la yiri in ay Harry oo xagga weerarka ka ciyaara ay qaadato Bayern Munich. Neymar ayaa lagu soo waramayaa inuu wada hadal u furmay isaga iyo tababarihii hore PSG Pochettino kadib markii uu yimid baa la yidhi Chelsea. Tababaraha cusub ee Chelsea waxa uu ballan qaaday in uu dhisi doono baa la yidhi kooxdaasi si uu nooleeyo kooxda Chelsea oo lagu bartay dhanka weerarka ayuu rabaa inuu ka dhiso. Naadiga Arsenal ayaa sheegtay baa la yidhi ciyaaryahankoodii Thomas Partey ay ku adagtay inay dib ka iibiyaan kooxda Man U oo ay tartan kula jiraan. Arrintan ayaa keenaysa baa la yidhi in ay diidaan dalabka uga yimid Man U oo doonaysa Thomas Partey. Thomas Partey ayaa la sheegayaa hadeer Sacuudiga hayaamayo xagga iyo Sacuudiga, iyadoo weli Man U xaggeeda codsiyo fara badan ay isaga soo daba dhacayaan. Wargeysyada isboortiga ee wadankaasi Mareykanka ayaa soo qoraya in laga yaabo Cristiano Ronaldo inuu u wareego liiga ama la liigaha USA, taasoo keentay baa kadib markuu ku biiray laacib Messi. Liiga Mareykanka ayaa lagu yaqaan in uu la soo wareego ciyaaryahanada cuslaaday sida Messi, Riquelme iyo kuwa kale badan. Markana arrin argagaxiso dhalisay oo ah in la sheegay tababaraha Man City Guardiola in laga maqlay in Ronaldo uu ka rigooro wanaagsan yahay mar laga wareystay. Taasi ayaa keentay yaab iyo makaag oo laga yaabo inuu yimaado Man City. Thiago Alcantara ayaa la sheegayaa inuu ku laabanayo kooxdiisii hore Barcelona. Ciyaaryahan Thiago ayaa la hadalhayaa inuu line-up-ka koowaad uu ka yahay naadiga Liverpool, taasi oo keentay inuu dib ugu laabto Barcelona. Thiago ayaa ciyaaryahan xagga weerarka ku fiican, weliba khalkhal geliya difaacyada. Thiago ayaa lagu waramayaa inuu xiriir fiican la leeyahay kooxda Barcelona. Laacibkan Thiago ayaa kursiga loo yaqaano benchiga in muddo ah lagu hayay. Tani waxay keenaysaa baa la yidhi in go'aan uu ka gaaro inuu isaga tago garoonka Anfield. Waxaa la isku haystaa halka uu ka ciyaari doono Harry Kane seasonka soo socda. Ma Bayern Munich ba, ma Man U ba, ma Real Madrid ba, mise waa Chelsea. 99% waxaa loo badinayaa inuu tago ama ka ciyaari doono inuu tago Bayern Munich, taasoo sabab looga dhigayo la kulanka tababaraha Tottenham ee la yiraahdo Daniel Levy
taasoo keenaysa baa layidhi in loo badiyo Bayern Munich balse lama xaqiijin karo. ugu dambeystii kabtanka Liverpool Henderson ayaa lagu waramayaa inuu Sacuudiga looga gacan haadinayo. wararkaas oo faahfaahsan waxaan ku soo gudbin doonaa wararkayga dambe ciyaaraha aad kala socon doontaan Gacaltooyo Show. intaasi ayaanu ku soo afeerinaa wararkii ciyaaraha aanu maanta idinka soo gudbinaynay. Gacaltooyo Show fadlan like iyo subscribe ka ilaawina si wararkan iyo kuwa kale oo dheeraad ah aad uga maqashaan. Rashford has right